السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون السلام عليكم waxaa ku suraatay YouTube channel-kayga magacaygu waa Fanaan Aadan waxaa la soo noqday video cusub haddii channel-kan ku cusub tahay welcome hagiilo subscribe-ka haddii aad kamid tahay daawadayaasheeda hore then welcome back video-gan hadda waxa u duubayaa inaad dadka igu xiran dadka qisadeeda la socdo inaad ogeysiiyo aniga waxaa jeclaystay qisadeeda haddayna inta kusoo afjaro maadaama hadda waxyaalo fara badan soo wada baxeen aniga markaa qisadan sheegayay waxaa rabay inaan sheego waxyaalo aniga soo maray inaan dadka la wadaago waxaana rabay casharadeyda aniga soo baranaya inaan dad badan sii gaarsiiyo waxaana rabay inaan dadka baro in waqtiga adag markasta ilaahay loo noqdo ilaahay lagu xirnaado haddii adiga tahay qof ilaahay ku xiran no matter what you are going through noloshaada waa ka baxay waa kasii socone laakiin hadda qisadii waxay isku bedeloosaa meelo kale aniga ugu talagalin ila galowsaa so waxaa go'aansaday talo badan markaa helay reer YouTube dad badan oo YouTube ku jira iyo dad badan oo aniga dhinacayga aad iyo aad qaali igu ah waxay ila wada taliyeen inaan hadda qisadeeda iska dhaafo anigana waxaa u arkaa sida u bilaaway iyo sida hadda u socoto isku meel ma ahan marwina oo ekaado qof maaragtay xanaaqsan ciilhayo mase qof maaragtay argos u socda qisadan ay sheegay argos ma ahaan yani qof kasta xor u leeyahay wuxuu soo maro inuu sheego haddana qof kasta xor u leeyahay casharadiisa soo bartay faa'iidooyin badan ku jirtay qisadayda inaa dadka kale sii faafiyo xor anigu lahay laakiin maanta maadaama sida u bilaaway waxyaalo fara badan soo wada baxeen oo personal sheekada isku bedeshay intay maaragtay dhaawacyo waaweyn mise waxyaalo waaweyn inta aniga kala kulmin dad kala kulmin waxaa jeclaystay qisadeeda inaan inta kusoo afjaro qisadeedana aniga koodii markaa bilaabayay system ku socday plan ku socday meesha ka bilaabay ilaa aniga meesha maanta taaganahay in aan keeno waxyaalo fara badan hadda sheegi karin hadda waxa baaba'aysa dhinacay guulal badan soo qaaday aniga waxyaalo fara badan aan la soo kulmay laakiinse dhib ma lahan insha Allah dhib ma lahan ala kulli xaal codkayga dad badan waa gaarsiiyay ala kulli xaal faa'iidooyinka aniga rabay in dadka gaarsiiyo waa gaarsiiyay taasna aniga maanta farxad ay tahay waxa kale aad iyo aad u faraxsanahay ina aniga ahay qof maanta meel dheer imaaday ina aniga maanta ahay gabar dad badan jecel yihiin dhinaciina waxa laga arkaa inahay gabar sharaf badan qiimo leh ilaahigeeda jecel ilaahigeeda ku xiran taasna aniga waxay tahay guul waxayna ii tahay farxad aad iyo aad u weyn jina qisadeeda bas ma ahan YouTube ka baxaayo mana ahan casharada aniga soo baranayay ina sii faafinaynin aniga markasta waxa jeclahay ina gabdho badan u istaago ina gabdho badan garabkooda noqdo ina dad badan caawiyo ku jira waqtiyaasha adag ku jira nolosha aniga soo mar because waxa adiga soo martid markasta dad ku jiro hadda dada mari doonaan dada hadda ka soo bixi doonaan waxa kale xataa si jeclaystay inaan ka sheekeeyo healing process-kayga because healing-kayga waqti dheer ahay sidee aniga ku istaagay sidee aniga ku kacay because maanta aniga waxa ahay hooyo yar oo haddana taagan oo kacsan ma ihi gabar dhibaato mise silac ku jirto waqti adag ku jirto ilaahay waqti mugdiginto ka soo saaro oo iftiinku ku keena text ayaan hore helay mar hore helay waxa ku qorneed perhaps ilaahay wuxuu ka badbaadiyay wax nafsadaada dhan baabi'in lahayd so sida aniga ku soo badbaaday ilaahay ka soo koow ilaahay wuxuu ahay caabitaanteeda koowaad iga soo bixi waqtigaas mugdiga ee keenay meel iftiin isiiyay nolol qurux badan noloshayda wax ugu yaab ka badneed waxay ahayd marka aniga gabadhay dhalaayay aniga gurigayga iska fadhiyo noloshii oo dhan wada imaaday taasna ilaahay ka imaaday laakiinse how do I work on myself in process badan soo maray aniga inta YouTube-kayga bilaabin inta qisadeyda bilaabin especially inta YouTube-kayga soo galin waxa ahay qof iska shaqeynayso is dhiirigelinaysa kor isku taagaysa niyadeeda isku dhisaysa kalsoonideeda iyo wax kasta kalama dib u soo ceshanaysa soo casharadaas aniga soo baranayay iyo motivationkaas aniga siinayay markasta waxa ahay qof jecel inay la wadaagto gabdhaha walaalaheeda gabdhaha ku jiraan waqtiyaashaas adag soo mari doonaan marooyin hadda ka baxooyin jah wareersan ogeen sidee u istaagi lahaayeen
kornu aadi lahaayeen. I just want to say sisters, I'm here for you. Aniga wani jooga waana joogi doona insha Allah. Min waxaa go'aansaday bes qisadayda ina inta kusoo afjaro. Waxaana rabaa ina Ilaahay u mahad celiyo hal text maaragtaa markasta maskaxdayda marna kama baxaayo. Textigaas wuxuu ahay fa innaka bi'ayunina, waxaa ku jirta indhaheena hoostiisa. U dulqaado go'aanku Ilaahay gaaray, una mahad celi Ilaahay marka aad istaagtid aa ka cadeed. Aniga maanta waxaa rabaa official maaragtay si oo dad badan oo codkayga gaara inaa dadkaas dhan u sheego maanta meeshana taaganahay Ilaahay ay keenay aan u mahad celi Ilaahay. aa kula Ilaahayo alxamdulillahi rabbil caalamiin for everything. wax kasta aniga ii sameysay waan u qirsanahay inuu Ilaahay maanta meeshan ay keenay. maanta waa kacay, waa istaagay, and maanta I'm rising, I'm shining, and taasna waxaa ka dambeeyo Ilaahay, and Ilaahay alxamdulillahi rabbil caalamiin. So guys, videogayga intaan rabo inaan kusoo gabagabeeyo. Until next video, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.